xariifkani gacanta ayuu taaganaya wuxuu isku dayayaa su'aasha macallimada ardayda weydiisay inuu ka jawaabo balse macallimada lugiisa ay fiirinaysa waxay ogaanaysaa midkan inuu faqiir yahay macallimadii ayaa Janice ku diidaysay wiilka mid kale oo kisto iskaladan ay Janice ka siinaysa uu uga jawaabo su'aasha ayda xariifkani waa midka ugu faqiirsan galaaska wuxuuna ku nool yahay guri aad jajab u ah familigiisa oo 5 qofood ka kooban habeenkii waxay ku cashayaan kaliya hal sandwich qof walbana waxa laga siinayaa hal jab xariifkii wax ka yar hal sakin ayuu ku cunayaa sandwichkii la siiyay kadibna habeenkii haduu isku day inuu seexdo ma seexan kara sababtoo ah gaajo ayaa bixisay sidoo kale marka la joogo xilliga break time-ka iskuulka ma haysto wax ku cuno ardaydana way ku jeesjeesaan gaajada isaga heesa awgeed wuma macaansada oo faruuraha ayuu leeleefaa balse mid kamida ardaydii ayaa wuxuu ku sameeyay wariya adiga gaajo miyaa ku haysaa hor raashinkan ayuu ku dhahay dhulka inuu ugu tuuray xariifkii ayaa sidaa ku xanaaqay wuxuuna bilaabay wiilkii inuu soo istaago kadibna uu sidaa ku garaaco balse waxa arkaysa macallimadii oo careysan waxayna ku leedahay wariya wiilka maxaad u garaacaysaa xariifkii faqiirka ahaa uu cararaya iskuulkan waa ka soo baxsanaya wuxuuna bilaabayaa inuu galo boxing ilaa uu ugu dambeyn noqdo ninka ugu weyn boxer